بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. موضوع جماعته waxa uu ku saabsan yahay nimankii khawaarijta ahaa waliba wiilkii yaraa ee daaliga mudilka ahaa ee aadka u aflagaadeeyay hadda ka hor sheekana qaaliga ah Sheekh Ismaaciil Xidig Allah u naxariistay oo diinta islaamka u soo qidmeeyay in muddo ah haddana nooga tagay kutub dhaxal ah oo diinta islaamka dhaxal u ah oo ay ku faanayaan muslimiinta guud ahaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ninkii ku aflagaadooday oo af labadii qayliyay ayuu ahaa markii la isu soo baxay janaazadii tashyiici loo sameeyay sheekha asagoo oo markaas cadaawad iyo ciil uu qaba darteed la yaabay makhluuqa ilaahay oo isugu soo baxay oo ciidu ay dhaqaaqday oo markaas ku micneeyay in ay tahay wax la caabudayo sheekhan en kutub uu ka tagayna inay tahay kutub ay kufriyaad iyo shirkiyaad ay ka buuxaan ninkii noocaas ahaa en haddana ka mid ah qolooyinka ka soo horjeeda ixtifaalka xabiibka salawaatullaahi wasalaamu calayh oo aad ugu andacooda doodooduna ay u badan tahay rasuulkii ma samayn shaygan hadduu khayr yahay rasuulka nooga hormari lahaa asxaabu rasuulillaahi baa nooga hormari lahaa salafkii baa nooga hormari lahaa madaahibtii afarta ahayd mashaa'ikhdeedii baa nooga hormari lahaa marka khayr hadduu shaygan yahay waa noolaga hormari lahaa wuxuusan nebi maxamed samayn ama asxaabu rasuulillaahi samayn ama salafkii aysa samayn shaygaas xaaraan weeye mana banaana in laga qayb galana ma banaana ninkii sidaas asagana oran jiray kana tirsan jameecada dhaqankeeduba uu yahay noocaas oo ixtifaalka rasuulka mar walba ka soo horjeeda xalay wuxuu iclaan sii samaystay asagii oo ku soo qoray sida halkan aad ka arki doontaan alwasaaya alcashara min suurati alancaam tobanka dardaaran suurat alancaam ayay ku saabsan tahay muxaadaradeenna ayaa la yidhi nebi maxamed wuxuu sameeyey ma ahan in noocaas loo sameeyo asxaabu rasuulillaahi ma aysan samayn taabiciin ma samayn taabici ma samayn salaf iyo khalaf midna ma samayn in muxaadaro noocaas loo gunto oo la yidhaahdo waxaan ka hadlaynaa alwasaaya alcashara min suurati alancaam haddaba hadday sidaas tahay waxuusan nebiga samaynin asxaabu rasuulillaahi aysan samaynin oo intaasoo dadkii wanaagga badnaa oo diinta nooga wanaagsanaa aysan samaynin hadde diin ma noqonayso hadalkiinu ahaatanu marka ma diin bay noqonaysaa ma meel dhaanta aad ku tirsanaysaanba ma meel caways aad ku haysaanba ma meel munkar aad ku haysaanba ma meel xaaraan ahba ma meel kasoo qaybgalkeedu xaaraan u yahayba jawaabteeda ayagaa laga rabaa waxuusan nebi maxamed samayn haddii aad samaysid diinna dadka aad uga dhigaysid wixii nebi maxamed uu sameeyeyna aad dadku dacaayadaynaysid yaa adinkaa jawaabtaas laydinka rabaa waa inaad ka soo jawaabtaan alwasaaya alcashara nebi maxamed ma sameey ma u guntay yacni muxaadaro gooni ah dadka ma u sii cilaamiyey masaajid ma la isugu yimid nebi maxamed inuu sameeyey iyo inuusan samayn adinkaan jawaab idinkaga rabnaa sababtu u samayn waayana adinkaan jawaabta idinkaga rabnaa macnaha uga tegay nebiga mar hadduu ka tegay maxaaraan bay ahayd asxaabu rasuulillaahi mar hadday ka tageen maxaaraan bay ahayd ilaa wixii laga tagay waxaad tirahdeen waa xaaraane tarkigu xaaraan weeyaa tirahdeen nebi maxamed ma samayn hadduusa samayn macnaheedu waa xaaraan asxaabu rasuulillaahi ma samayn hadduusa samayn waa xaaraan taabici ma samayn haddaysa samayn waa xaaraan haddaba muxaadaradan aad gunuday oo wasaaya alcashara aad u bixisay intaba ma samaynine ma xaaraanbaa ayadoo xaaraan ah miyaad ku dhiiratay ayadoo baadil ah miyaad ku dhiiratay munkar miyaad dadka isugu yeerteen munkar miyaad ka sheekaynaysay taas jawaabteedaan idinka rabnaa caama markaan u soo jeesto caama ma aragtaan nimanku waa noocaas inay nebi maxamed necab yihiin ha idin caddaato wixii caqli leh oo caqligooduba uu furan yahay wixii caqligoodu qufulan yahayna dee kaala hadli mahayo waxna u sheegi mayno ilaahay baa dhumiyey meel daranna allah ka sii rido laakiin qofkii caqli leh wuu fahmi karaa waxaan nebi maxamed ma samayn asxaabu rasuulillaahi ma samayn taabiciin ma samayn bararaq haa saas darteeda xaaraan weeye haddaba waxay samaynahay maxay tahay intaba ma samayn marka ma xalaala mise ayadoo munkar ah oo xaaraan ah oo aysan bannaanayn bay samaynayaan intaas ayagaa jawaabtaas laga rabaa adinkuna inaa intaa fahantaan aan laydinka rabaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu